laba qodob ayuun baan ku darsan lahaa uun kumankan dastuurkeena aynu halkan ku falaaqeynayno maadaama uu yahay masiirkii lagu dhaqi lahaa ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier qodob waxa weeyaan xubin sharafeed ururka haddana xubin ka noqon karta waxaan dastuur marka la qorayo ama constitution uu ku shaqeynayo urur waa inuu qeexnaado article-ka lagu soo darayaa wuxuu qabanayo qodobka sheeg mukhtaar qodobku waxa weeye qodobka 7 waa xubin sharafeed waxa la yidhi waxaa xubin sharafeed ka noqon kara ururka suxufiyiinta Somaliland saaxiibadeeda maalqabeennada xubno ka tirsan ururada caalamiga maxay qabanayaan waa in lagu qeexo qodobka waan soo jeedin lahaa waxa kaloo soo jeedin lahaa ururka suxufiyiinta Somaliland ee Soldier maadaama uu yahay ururka maanta ugu weyn inkastoo jiraan ururo kale oo badani waa in si toos ah loo qeexo halkan qodobka 7 waxa ku qoran waxa xubin ka noqon kara xubnaha ka tirsan saxaafadda iyo saxafiyiinta reer Somaliland ee markay buuxiyaan shuruudaha ku xusan qodobka 7.3 ee qodobka 7 haddana xagga waxa ku qoran waa inaanu xubin ka ahayn urur saxaafadeed ka jira dalka gudihiisa labada qodobna hal iswaafajiyo waxay ku jiraan qodobka 7 labada qodobba waa laba qodob oo iska hor imanaya oo disorder isku noqonay marka la eegayo constitution arinta kale aan soo jeedinaya waxa weeyaan markii ururkan xeerkan wax ka bedelka lagu sameeyay ee 2014 la soo bilaabay anigu waan ka mid ahaa dadkii wax ku daray qodob baa jiray meel kasta lagaga soo horjeedo dastuurkan oo 2004 soo baxay oo madaxweyne Daahir Yaale ansixiyay oo golaha la hordhigay qodobkaasi waxa weeyaan war saxafiyiintii waxba qoraysaan qof baa ku tacadiyaysan mas'uula waxa doontaa ku sameeynaysan idinka maxay dan qabanaya qodobada lagu garheelay bay haayeen ee hay'adaha iyo dadka sharci yaqaanada inta badan ay ururka ku dhaliilayeen waa in lagu soo daro kuma jiro constitutionka shultama waa xeerka saxaafadda kaas yes waa xeerka saxaafadda weey qodobka laftigiisa waxaan doonayay oo kalaam kaga bixi lahaa constitution Soldier waxa jira in kala sidoo hadlayay imika kulli aan wada fadhinay miiska kastaan isbaan isu garanayn la Axmed Saki la xisaabtanka xubnaha Soldier waa muhiim laftigayga anagu waan xisaabtamnaa kuraastaan soo dhacnaa albaabadaan soo xidhay jirnay wasaaradaha iyo dawladaha soo dhexgali jiray laftigiisa Maxamed uu kamid ahaa dadka ururka soo dhexgalay mararka qaar xisaabtu kama dhex maqna 15 xubnood laftigooda ayaa istuuma oo isjiijita oo wax isweydiiya laakiin si cad marka shirarkan oo kale la qabanayo waa in laftigooda ay xisaab cad keenaan oo la xisaabtamo wixii meesha kaga tagay wuxuu ugu yimid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.